wararka qaar waxay sheegayaan in maamul goboleedyada qaarkood ay musharaxiinta ka mid yihiin oo iyaga laftirkooda ay madaxweynimo rabaan doorashadina saameyn ay ku leeyihiin oo deegaanka iyo dadkii la soo xulay iyaga meesha ay xukumayeen ay tahay laftirkooda maxay abuuri kartaa arrintaas waa arrinta ugu yaabka badan ama ugu qosolka badan in marka in ninkii doorashada maamulay ama xildhibaanada qoray ama aqalka soo qoray oo intuu dad soo qorto oo maamul goboleedyadii la soo heshiiyo oo asagoo wata 150 xildhibaan qadiga ugu jiraan uu yiraahdo waa tartama say ku dhici kartaa ninkii aan wax soo qoran oo musharax ah oo dar ilaahay ah iyo ninkii wax soo qortay say u tartamaya tartan marka lagu leeyahay waxay la mid tahay laba qof oo garoonka inta la geeyay ordayo kale la mid tahay haddii qofna wadadii uu ku ordayay dhagxaan loo dhigo ama qodxo qofna loo xaaro dabcan qofka guuleysanaya waa muuqdaa siyaasaduna waa sidaas leeg haddii nin raba damac uu ku jiro madaxweynenimo waxaa la rabaa 6 bilood ka hor doorashada inuu iclaamiyo lagana ilaaliyo inuu ku yeesho saameyn nidaamka doorashada oo uusan dad gaar soo xulan karinin habraaca uusan asagu qayb ka noqonin gaaladu waxay yiraahdaan waxa la yiraahdaa conflict of interest masaalix isdiidaysa waay marka cadaalad ma imaanayso marka dad waaweyn baan aqoon baan leenahay siyaasiyiin baan nahay haddaanan diidin dulmiga iyo cadaalad darrada wadankuna degi mayo khilaafkana laga gudbi mayo si nabadgelyana doorasho ku dhici mayso marka waxaan leenahay qof kasta oo damacaas ku jiro xaaraan tahay ha ka tanaasulo haddaad musharax tahay waa inaadan doorashada qayb ka qaadan maxamed cabdullaahi farmaajo haddii loo diidayna qof kale in laga aqbalo sax maaha maxay tahay doorkiina madasha annaga waxaan rabnaa oo aan difaacaynaa doorasho xor oo xalaal ah oo credible ama la aqbali karo inay wadanka ka dhacdo habraaceedana heshiis lagu yahay boroseska ay maraysana guddiga doorashada uu maamulo oo madaxa bannaan haddii la waayana doorasho dhici mayso sababtoo laysma khasbi karo waxaan kaliya marka uga digaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalka haya ha noqdeen maamul goboleedyada kuwa madaxda ka ama kuwa federaalka ha noqdo cadaaladda baad wax ku noqon kartaan cadaaladda ilaaliya haddii ay idinku jirto hammi inaad musharaxiintiina boroseska kama qayb noqon kartaan ka baxa dadna ma soo xulan kartaan waa in doorashada loo tartamaa oo qof kasta oo jufida kursiga iskale ah oo damaciisu gaarsiiyay inuu tartamo oo tartamaa ergooyinka waa inay jufida iskale ku heshiisaa odaga 130 ugu jiraan oo saxiixa waa gartay Umar hadda si looga ilaaliyo in ay ayagu maamulaan xilliga doorashada ma leedahay waa ku dhacaya doorashadan xilliga doorashada horta miduu soo jiitamay doorashadu waxay 8 February sanadkan inay dhacdo haddana waxa maanta gabagabaa bishii 9aad 8 bilood bay marka hadda doorashadii dib u dhac ku jirtaa 8 bilood waxa la hor taagnaa inuu boob doorashaas ku dhacdo oo wadanka fowdo hor lagu galo markii la soo dhirindiriyay oo la soo dhaweeyay qolo kala rabtay inay afduubto oo ah maamul goboleedyada ayadana waxa la idinka yeelmiyo haddii marka nimankan damaca boobka uu ku jiro la yiraahdo maya oo laga heshiiyo doorashadu si fudud bay u dhacaysaa si nabadgelyo u dhacaysaa si kalsooni u dhacaysaa wax shacabku taageeri karo Britole ayaa soo baxay oo raali laga wada yahay inta badan ummadda Soomaaliyeed haddii laakiin khilaafku dhammaan waay oo damaca boobka uu wali taagnaado mucaaradka iyo indhargaradka Soomaaliyeedna ay aqbali waayaan iska horumaadka laga gudbi mayo doorashadu daahid bay keenaysaa inay wax daahaana waxa ka faa'iidaya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday oo sida sharci darrada hadda ku jooga ayaa sii joogay marka laba daran mid dooro marka waxaan rabnaa laba dooran mid dooran inaan kala doorane aan iraahno laba dooran mayne doorasho cadaalad oo waqtigeeda ku dhacdaan rabnaa shalay madaxweynaha ka carreyseen oo la heedan muddo kororsanaya ma aan isku group aad heedan adinka iyo dawlad goboleedyada maanta hadana dawlad goboleedyada adinku waxay muddo inay kala taagan tihiin doorashadan adinka saameyn toos ah kuma lihidino dadka wax soo xulay deegaanka dadka lagala tashanay matiina musharaxiinatiin intee ku xirantiin marka adinka anaga horta musharaxnimada aan nahay musharaxnimada ayaa waxay waajib siinaysaa ah inaanu difaacno wixii dalkan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa طبعا qof kasta Soomaaliya oo wax garadana waajibka waa saaran yahay oo xuquuqda waxa leedahay baa leeyahay xuquuq midda aad difaacataa leedahay haddaad difaacan xuquuqdaas waa laga qaadanaya
adduunkan waxba la isma joojiyo nin damaaciyaho tuugo wax dhacay lama waayo marka haddii aanu madaxweynihii hore madaxweynkiisii dhammaaday ka diidnay inuu doorashada asagu faraha kula jiro maamulo si uu u xaglisto doorashada oo dad u soo qorto maamul goboleedyadii shalay aan isku jaalka ahaynna ay damaciyo kala yeesheen ayagana waa inaanu idhahnaa maya waa inaanu idhahnaa idinka yeeli mayo waxa keliya oo mustaqbalkeena iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo dalkan ku xiran yahay waxa weeye wax heshiis lagu yahay oo cadaalad oo la aqbali karo tii un baanu difaacina annaga mowqifkayga isma bedelin laakiin nasiib daro maamul goboleedyadiiba wax u soo baxday markay fiiriyeen meesha inay damaciyaan wax muquusan karaan oo sidii rabaan ay u dhigan karaan laakiin waxa lana shacabka Soomaaliyeed idinka yeeli mayo waxaad ku samaynaysaan underestimation shacabka Soomaaliyeed cadaaladda siday u rabaan waqtigii boobka waa laga soo gudbay sida hadda xiriirka adinka iyo maamul goboleedyada dagaal hadda oo shakhsi oo nagala dhaxeeya ma jiro laakiin waxaan hor yaal waxa weeyaan siyaasadda iyo damaca maamul goboleedyadu ay wadaan oo aan u aragno inuu yahay mid lid ku ah doorashada xortaayda xalaasheedu la doonayay iyo xasiloonida iyo mustaqbalka iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed marka qof kasto isku daya inuu saxun wuxuu maamulo saxun wuxuu raadiyo annaga waajib saaran waa inaan ka hortagno annagoo musharaxiin iyo annagoo muwaadiniin ah labadaba marka waxaan dalbanaynaa mar walba waxaan rabnaa doorasho waqtigeeda ku dhacda oo xor oo xalaal oo raali la isaga wadayahay waxaana mas'uuliyadda iyo qaangaarnimada siyaasadeed ay tahay in la isdhageysto la wada hadlo waxa laga cabanayo la xalliyo laakiin haddaad iraahdo aniga waxa cabanaysid shaqadayda maahan anaa maantay fursad haysto saan rabaan yeelaya isku dhac baa ka imaanaya hore u soo mar عمر عبد القادر أحمد فقي إنه مشرح يا والأوجه dadka kuma cusbid hadii ay dhacdo in Ilaahay ku saamaxo oo alla ku fudeed ku guuleysato maxaa isleedahay waxa Soomaali horta u baahan tahay oo kuwii hore ay ka gaabiyeen oo aan qaban lahaa dabcan horta hadii Ilaahay nagu guuleeyo aan dalka madaxweynihiisa soo socda noqdo Soomaaliya dawladeedu siday hadda maanta tahay ma ahaanayso waxaan ka bedelayna oo horumarinayna dawladnimada waxa gundhigu ah mar walba waa sharciga oo la ilaaliyo iyo wixii ummadda ku heshiisay oo la ixtiraamo ama dastuur ugu yar ama xeer ugu yar iyo inuu sharcigu shaqeeyo in maxkamaduhu madax banaanaadaan waxaan shacabka Soomaaliyeed hadda u ballan qaadayaa haddii aan madaxweyne noqdo 4 sano ka bacdi doorasho xor oo xalaal ah oo qof iyo cod ah inaan wadanka gaarsiino haddii caqabado waaweyn yimaadaan oo aan gaarsiin weynana anugu isma sharaxayo boobka aragtida boobka ku salaysanna ma dhacayso waxaan isku dayaynaa haddii Ilaahay qadaro inaanu ka gudubno marxaladan khilaafka ah oo aanu cadaaladda ku dadaalno waxaan aaminsanahay haddii cadaaladda la xoojiyo khilaafku waa yaraanaya ummadda Soomaaliyeed way jeclaanaysaa way wada shaqaynaysaa marka cadaalad darrada iyo damaaciga iyo boobka siyaasiga Soomaaliga ahi waa inuu meesha ka baxaa ku takrifalka awoodda mas'uuliyiinta dalka ugu sarreysa markay xilalkaas qabtaan ay ku takrifalaan awoodda dawliga iyo dhaqaalaha dalka waa inay meesha ka baxdaa waa inaanu dawlad hufan gaarsiina dalkeen marka waxaan is leeyahay waxa hadda jiro dhan waxa uu ah udub dhaxaad damaca siyaasiga haddii siyaasi daacad ah oo damaca gurracan aan lahayn uu yimaado wadanka waa la hagaajin karaa dadka aqoonta leh amaanada ku wanaagsan kartida leh in dadka loo soo hormariyo waxaan nidaamka ku dhisan waxa la yiraahdo loyalty-ga ama se anuu ii yahay daacad anuu ii shaqeeyaa anuu ila soo halgamay anuu ii ahaa waxaan ii ahaa anuu ila waxaas waa inay meesha ka baxdaa oo shaqo hadday rabto inay hagaagto waa in qofka mas'uuliyaddaas leh aqoontaas leh shaqadaas qaban kara loo raadiyaa dawladdu mar walbaba waxay ku xiran tahay wanaageedu daacadnimada iyo aqoonta iyo hufnaanta dadka maamulaya shaqo walba waxa la rabaa qofkeedii sax ahaa in laga adeejiyo laguna ilaaliyo qofka mas'uulka u sareeyo laakiin haddii kor baashu ku xun tahay waxay la mid tahay qof madaxa ka jira waa gartay qof madaxa ka jira waa gartay ugu dambeyn musharaxiin badan ku tartamaysiin waxa hore u sheegtay in sanataradii soo baxay ay malxiisi jireen musharaxiintiina laftirkooda ma jiraan qaar malxiisi ah oo dadka waqtiga ka luminayo musharaxa ahayd leh maxay ma jiraa wax heshiis ah oo isugu tanaasuleysaan marka والله كل أنا هذا مديه كرو مشرح ملحيس ساجره
malxiis waxaa la yidhahdaa nin inta loo yeeray la yidhahdo xoogaaba lagu dhiibayaa halkaani istaag oo inaad tartanto dhabkaama camiraad bay waxay dhihi jireen camarku camiraad qof camiraada laakiin qof is-iclaamiyey bannaanka soo istaagay aragtiisa sheegay fikirkiisa sheegay hamigaas inuu waddanka madaxda u sarreyso u tartamo malxiis ma noqon karo tan kale in la iskaashado oo si kastay siday ku suuroobayso la isu kaashado mar walbaba waa arrin furan musharaxiintuna mar walba waa ka sheekaysanaa arrintaas laakiin tallaabo walba waktigeeda ay ku habboon tahay ayaa la qaadaa weli waxaan jirnaa meel ka durugsan waktigii la wada xaajoon lahaa doorashada waxaan rabnaa bal horta inaan doorashadii lagu guulaysto inay dhacdo oo si xor xalaal u dhacdo xildhibaanadu soo baxaan xildhibaanadu hadday soo baxaan musharax kasta miisaankiisa u soo baxay waa la qiyaas karaa markaasaa waxaa bilaabanaya isxulafaysi wax isku biirsasho isu tanaasul markaasay bilaabanaysaa laakiin waxaan isleeyahay tiradan badanoo hadda musharaxiinta ahi miiska ma wada aadi doona oo qaar badan baa markay arkaan waxay gacanta ku hayaan ka tanaasuli doona laakiin mar walbaba siyaasadda waxaa gundhig u ah in la tartamo oo tartanku waa caafimaad ganacsiga waa lagu tartamaa siyaasadda waa lagu tartamaa waxbarashada waa lagu tartamaa si tartankaas waxaa imaanaya dadka ugu fiican inay soo hormaraan siyaasaddana waxaa lagu qiimeynayaa tartankeeda qofka ugu aragtida fiican qofka ugu visionka fiican qofka ugu fikirka fiican qofka ugu daacadnimada badan ka muuqato qofka fahamka dhabtaa leh ee waddanka wuxuu soo maray iyo meeshuu taagan yahay qofka future-ka ama mustaqbalka saadaalin kara in laga dhexushaal rabaa marka oo dadka Soomaaliyeed ay qiimeeyaan dadka oo magaca ay maqleen kaliya aysan ku qiimeynin laakiin qofkii miisaankiisa la fiiriyo aragtidiisa fikirkiisa fahamkiisa daacadnimadiisa waxaas wax lagu xusho inta ayaan gudahaan kusoo gabagabeynaya waraysiga toddobaadka oo marti iigu ahaa musharax Cumar Cabdiqaadir Axmed Fiqi oo kamid ah musharaxiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi aad baad u mahadsantahay musharax